بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين soo dhawaada asxaabta caawa waxaan duubanaa hadii Allah uu dilhidmo ama idin soo gudbin doonaa casharkeenii afraad oo ku saabsan HTML-ka marka caawa waxaan qaadan doonaa hadii Allah uu dilhidmo casharro kala duwan oo dhowr nooca sida heading-ka, paragraph-ka, formatting-ka, quotation-ka, comment-ga iyo wixii la mid ah markaas ugu horreyntii waxaan soo fursaa new file marka trade waxaad haasaa save file baad tigaysaa save baad dhigi kartaa control s baad dhigi kartaa laakiin anigu hadda waxaan oranayaa file baan tigaya save baan oranayaa waxaan ku save gareysanayaa halkaygan waxaan u bixinayaa ka ugu horeeya matalan ba lesson4.html okay marka ugu horeysa marka waxaan sameynayaa intii necessary ahayd html key markasta loo baahnaa okay halkaas waa title baa la dhahaa waa ciwaanka browserka dushiisa ka soo muuqan doona marka title wada arki doontaan hadii waxaan ku qorayaa matalan ba lesson 4 okay marka waxay maasay burigan marka casharada caawa cashka ugu horeeya aan qaadan doonaa waxa weeye waa heading-ka HTML-ka hore baan u soo aragnay theory-giisa wuxuu ka bilaabmaa h1 wuxuu socdaa ilaa h6 waa ciwaanada marka bal aynu sidan oo kale ayuu soo baxaya h1 waka h2 waka h3 waka saasi u kala waaweeyeen sida ay u kala number yihiin bay u kala waaweeyeen bal aynu aragno practical aynu aragno marka ugu horeysa waxaad haasaa h1 okay h1 marka tiraahid tag h1 aad ku xidhid hadana aad ku h1 tag h1 oo front aad ku qoraysaa hadana waa sidoo kale xiraysaa dabeetana waxaad ku qoraysaa ciwaanka koowaad بدينا مساسنا يعني دبتنا انتنا highlight ساريا ونكوبي قرينيا حاجة سين بيست كورنيا هلو كوبي بيستي لحجر ما قاعد نو لحجر ما لح ما كدغيا اوكي لح ما كدغي كان وا h1 كاسن دينيا كان waxaan ka dhigayaa h2 ayaan ka dhigayaa labadaas ba one h2 baan ku bedelayaa okay kan waan imaanayaa h1 kan waxaan ka dhigayaa h3 okay kan kan waxaan ka dhigayaa h4 okay kan waxaan ka dhigayaa h5 kana h okay inta marka tamisid ciwaanka uu ka sareeyo uu ka weynaa kana ugu yar h6 baa ugu yar okay waad aragtaan waxa ugu horeeya ciwaanka koowaad sorry aan Soomaaliga aan bedelno ciwaanka koowaad soo kana ciwaanka labaad aan dhahno kana aan dhahno ciwaanka saddexaad kana ciwaanka afraad shanaad ciwaanka lixaad control s browser ka dar tag dibta refresh day waad aragtaan ciwaanka lixaad baa ugu yar ka koobaadna wuu ugu weyn yahay waa ku ka marka saas ayaad samayn kartaa heading-ka hadaan ka socono heading-ka waa kan sawirkiisu waxaad fartooda weyneyn kartaa isagoo markii hore h1 ay ugu weyneed hadana waa si weyneyn kartaa waxaad ku dar kartaa waxa loo yaqaano inline style oo waynu arki doonaa hadii alaabo tilidmo inta hadaynu ku daro waxaad tigaysaa halkan aad tigaysaa مثلا بقى واحد عصا مكان style okay دبتنا واحد عصا equal double quotation دبتنا واحد عصا font size وين عطيه له هو تلهيدمو وين أركب دونا واحد ورن يعني كوات مثلا مثلا باللحدة يا أفريقيا ديك بيكسل كول ولين control s بدل ده مرتا وكسي وين كذا مركا وسي وين كذا عوانك لكن سيدا default كه هذا وديسيد وين h1 كايا وين okay يعني كسرنا okay heading waxay nagu xiga waxa loo yaqaano paragraph waa maxay paragraph hore baan soo aragnay paragraph waa in aad b tag baa lagu define gareeyaa waa dibtana b tag from the book tag xiran oo dhexdeeda qoraal la geliyay way okay b tag element define paragraph b tag tan ayaa loo isticmaalaa marka paragraph tiraan samaysid okay aan tago html kayga aan leeyahay editor-kayga xagan hoose aan tago aan qoro b tag marka ugu horeysa ni calaamadda ka yartaa دبتنا حنقولها B كوين دبتنا حنقولها B عليك علامة كيرتا slash
isaga automatic soo xidhay intaas ka qoraysaa inta marka qortay halkan aad gelinaysaa marka waa paragraph-ka wuxuu yahay waan waqaanaa asal ahaan Englishan wuxuu yahay okay waa qoraal ka kooban kelmado ama dhowr jumlo ka kooban ama ka badan karo dhowr line ka koobnaan kara okay xagan aad gelinaysaa midna waxaad dhahasaa fadlan subscribe saar channelka linkom and 252 gambalel kana riix si aad u heshid ogeysiiska okay inta markaad samaysid control s leh right click leh oo bring close okay waxa soo baxay somaha qoraalkaas waa paragraph wuxuu ku dhex jiraa b tag ku dhex jiraa paragraph insaas loo sameeyaa okay aan ku noqono slides-keeni okay cashirkeenu ku xiga waxa weeye br wax kale ma aha paragraph-ka matalan hadda hadaan badiyo oo aan qoyska intan aan koobiyay intan waan badiyay waxaan yiri paste waan yiri hadana paste waan yiri okay xagan oo kale waan tagay hadda matalan control s baan u safriyay waxaan tagay browser-kaygii refresh baan yiri marka refresh gareeyo wax dheer buu noqday Soomaha halka browser macnaha computer-ka shaashadiisa oo dhan line-kaas uu qabsaday haddaan rabo inaan halka ka kala gooyo halka subscribe saar bartaasan rabaa inaan ka jabiyo oo intani ay line cusub in noqoto markaas oo kale ayaan isticmaalayaa b tag isticmaalaya ama br tanay br matalan xagan kale tagayaa dabtan waxaan tagayaa halkan ay ku qoran tahay subscribe saar taas oo kale ayaan ku qorayaa br okay br markaan ku qoro control s baan leeyahay waan ku noqonayaa line-ka dheer hadda soo ma aragtid halkaas uu ka jabaya okay soo kama jabin bartaa mar laba 252 ga dabadiisa ka jabin kartaa aan tago 252 halkay ku qoran tahay tag oo where is watan dabtan hadda br dabtan taabanaysa br kaliya qorsa taaban kartaa haddii kale calaamadda ka yarta qor hadana br qor hadana ka weyn ku aan refresh dhaho okay mar laba arta marka br tan sidaas ayaa loo isticmaalaa br tan intaasi cashirkeena caawintaas ku eegaya aad baad mahadsantihiin fadlan channelka subscribe saara videogana like saara aad baad mahadsantihiin wassalamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh